Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maantana waxaynu eegaynaa website-ka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Somaliland. Waa website-ka wasaaradda tacliinta. Halkani waa bogga hore. Okay, waxaynu gelaynaa halkan oo ah madaxda wasaaradda. Wasiirka, ku-xigeenka, DJ-ga ama agaasimaha qaybaha madaxda wasaaradda magacyadooda. Waa wasaaradda tacliintu way awoodi weyday inay magacyada madaxda wasaaradda ay ku soo qorto page-ka. qaybaha kala duwan ee website-ka wasaaradda tacliinta sida website-yada kale ee xukuumadda Somaliland dhammaantood waa copy and paste waa meelaha laga soo copy gareeyay oo duuduub lagu soo qaatay oo dabeetana website-ka la dhigay weeyaan. Marka website-kana waa sidaas marka inta badan waynu iska dhaafinaa halkan waxaa ku qoran gobollada Somaliland gobolka Maroodi Jeex waxaa lagu qoray gobolka Maroodi Jeex waa gobolka ay ku taalo caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland. Waayahay gobollada kalena aynu eegno gobollada kale mid dhaqaaqaya ma jiro ka taab ma dhaqaaqayo Awdal, Selel, Gabiley, Hawd, Saaxil, Togdheer, Daadmareer, Saraar buu gobol dhaqaaqaya oo wax ay ku hoos qoran yihiin ma jiro. Waa meel maran weeyaan iska soo dhaaf halkan aynu eeginaa waa qayb ay xiisado iyo darasyo ardaydu ay ka baran karaan. Waayahay marka grade 1 baynu taabanaynaa. Okay, halkaynu soo galnay maxaa ku jira? Waa xiisad Soomaali, xisaab, casharka labaad, afraad, lixaad, tarbiyad, Carabi, English, cilmi bulsho, saynis. Waayahay lesson 1 baa halkaa ku qoran. Lesson 1 soo deji. Waa ka soo degay waa xaashad yar maxaa ku qoran? Cashar baynu u soo galnay meesha maxaa ku qoran hadaba? waa kan casharka wasaaradda tacliinta sare waxaa halkan ku qoran inaan idiin turjumo ma istaahilan. casharkii wasaaradda tacliintu waa kaas halkan ku qoran. Soomaalidu waxay tiraa nimaan xishoonayn dagaal xeeladi kama hayso. Imagine dhalinyaro arday ah oo wasaaradda tacliinta website-keeda soo galay oo dabeetana is yidhi casharka ka soo korarsado oo wax soo barta dabeetana waxaas la kulmay oo waxaas arkay bal ka warrama waxay la tahay laakiin casharka labaad baa dhaama ka hore. casharkii labaadna waa kaas kaynu xidhnay unbuu noqday koobigiisii maadaama website-ka wasaaradda tacliinta qaybta casharada ay ku jiraan waraaqo yaryar oo lagu faygalay. Marka website-ka wasaaradda tacliinta inaynu wax kala weydiinaa waaba khaladba in wax kale laga sii eegayaa waaba khaladba marka way ka baxaynaa. waxaynu gelaynaa hay'adda daraasaadka qaranka iyo tacliinta sare. nin baa laga hayaa bariiskeedii baa nuunuu ku jiro masay baasta karaysi casharadii yaryaraa ee ardayda ayaynu website-kii soo gelin kari weynay wasaaradda waxbarashada oo markaysaynu hay'ad daraasadeed dusha saaran. waa shaydaankii xaabada la liitay xaabada kale arkay mise hawar bay ahayd yeelkeedii balaaneegna waxaa ku qoran meesha 2011 ayaa digreeto madaxweyne lagu magacaabay hay'adda halkaasna waxaa ku qoran magacyada madaxda hay'adda. waayahay ka gudub waxaynu gelaynaa aragtida hay'adda waa laba sadar baa ku qoran aragtida hay'adda tacliinta sare mise waa sadar iyo badh. mishanka hay'adda tacliinta sarena waa laba sadar iyo badh kii hore wuu dhaama. waayahay maxaa soo raaca university license liisamada jaamacadaha. intaa aynu soo eegnay magacyada maamulka hay'adda iyo aragtida hay'adda oo laba sadar iyo mishanka hay'adda oo laba sadar marka laga yimaado inta kale oo dhan way maran website-kana wuu maran yahay wax ku qoranayba ma jiraan waa cidla wata xeer baan ku qorayn qorshaan ku qorayn mashruucyo iyo projectyo dhammaaday baan ku qorayn kuwo furan oo soconaya baan ku qorayn wax alaala wax ku qoran ma jiraan. dhinac marka la eego wasaaradda tacliinta sare iyo sayniska way dhaantaa waayo kuwaasi waxay soo qoreen wax aan munaasab ahayn bay ku soo qoreen meesha ay soo geliyeen kuna waxba may qorinba faraha bay ka qaadeen halkaasay iska dhigeen hay'addii website-keedii halkaasay iska dhigeen hay'addii website-ka commissionka tacliinta sare waa la iska faraha laga qaaday. waayo marka maxaa u nafa ummadda reer Somaliland ee 70% dhalinyarada ah ee waxbarashada ku jira ma halkaasay ka dhageysanayaan video eeg qayb kasta oo website-yada Somaliland ka mid ah qaybta media markaad gasho waxaa ku jirta cajaladihii TV-yada lagaga hadlay baa ku jira cajaladii baa ku jira TV-yada lagaga hadlay marka ummaddu ma hadal bay dhageysan ma hadal bay dhageysan bal imka website-kan eeg halka sawiradiisa waxaa ku jira sawirro WhatsApp baa ku jira
sawirro WhatsApp la isugu dirdiray oo shaqaaluhu ay WhatsApp isugu dirdireen ayaa ku jira xitaa sawirro caadi bay soo gelin kari waayeen